waxaan u mahad celinaynaa marka hore shirkaddii taabagelisay mashruucan oo runtii wakhtiga la hirgeliyey ay tahay wakhtigii loogu baahi badnaa mashruucan guud ahaan mar walba calafka xoolaha inuu baahidiisu si joogtaa u jirtaan aaminsan laakiin maanta oo abaar ay ku habsatay Soomaaliya guud ahaan galmudugna ay in dhibaatada ku filan ay ka soo gaartay dad iyo dunyaba gaar ahaan hadda ay abaartu ugu daran tahay dhinacii xoolihii in la hirgeliyo oo shirkaddan ay hirgeliso mashruucan waxaan leenahay maalintii loogu baahi badnaa maalintii ay wax ay qaban karaan oo runtii ay tari kareen ay tahay maalintii ugu saxsaneed waa hirgeliyeen kambanigan horta u mahad celinaynaa waana dhiirigelinaynaa runtii ma jirin guud ahaan calafka xoolaha si Soomaalidu ay ugu dadaashay ama ay uga gaashaamatay iyadoo aan ognahay dadkeenu ay xoolo dhaqatay ay yihiin oo xooluhu ay yihiin hantida ugu badan ee Soomaalidu ay haysato xoolaha nool abaar xilli kasta oo diyaar garow weyn ma jirin ilaahay fadligiis maantay shirkaddaani waxay keentay hal abuur wanaagsan oo xoolihii ku noolaan karaan oo soo saarkuna uu yahay hadda sida la sheegay asbuucii waxaa hadda lasoo ugu horreeyey ama labadii ugu horreysay waxaa soo baxday min 70 tan waa tiro aad u badan dabcan wayna sii kordhi doontaa oo waa la sii kordhinayaa sida hadda muuqanaysa oo waxaa lagu wadaa inay sii kororto baahi badan bay dabooli kartaa wax badan baa xoolihii maanta u dhimanayay ay heli karaan calafka u dhimanayay dadku wixii wax haysta oo wax un heli karaa raashinka dadku cuno bay xoolaha u gadayeen taasoo aan duruufta u saamaxi karin oo qarash badan fara badan uu kacaysay oo dadku waxay la isticmaali lahayn xoolihii isticmaalayaan nasiib wanaag maantay in calafkii xoolaha la hirgeliyey waxay noqonaysaa inay si sahlan dadkii xoolaha ay u haray ay ku heli karaan calafkan marka waxaan leenahay waxay la mid tahay waa gurmad maaha inuu kambanigan ama shirkaddan faa'iido ay ka helaysa kaliya tani waa gurmad maanta abaartan iyo weliba xilligan duruurtan ku soo aaday marka waxaan leenahay dadku ha ka faa'iidaysteen xoolahana halkan looga calafka looga faa'iidaysto adinkuna wax soo saarka badiya oo dadaalka